أصحابتي قالقة وحيد الله الله ونزار وداب عنه معمامي يحيى أصحابي وحا يقول عضي أرك اللي يدلي وحاواي ما دام أن عدالتي حق أكالي oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy idaaq darji loo geystay muuqaalkan hadaad fadlan calool jilicsan tahay iska jooji hana daawanin kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga socotaan waa Rugta TV ku soo dhawaada muuqaal aad u qiiro badan dhibaato lagu sameeyay wiil Soomaaliyeed oo baraha bulshada caanka ah waa Sheekh Baaba oo idin muuqdo runtii wajigiisa aad aragtaan xaaladda ka muuqata Sheekh Baaba oo baraha bulshada caanka ah laguna yaqaan majaajilada iyo ka qoslinta iyo madadaalinta bulshada ayaa laba maalin ka hor soo saaray muuqaal uu ugu heelinayo ama uu markaasi rabo inuu garab ku siiyo Sharma Boy ugu heelinayo Daahir Calasow oo markaasi uu u arkay isagu fikrahantiisa inuu ka qaldan yahay Sharma Boy wuxuuna ka sameeyay baraha bulshada muuqaal fikir ururina uu markaasi ka soo duubay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo markaa ku weydiinayay shacabka ra'yigooda balse jawaabtu maxay noqotay wajigii quruxsan ee wiilkan Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa ee runtii bulshada caanka ka ahaa inuu sidan ahaa loona bedelay sida tan idin muuqata waxaa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Sheekh Baaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa Sheekh Baaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoon aab u lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arrinka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdaan brother inta ku soo wada hadlayna inabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku imaanayna arigu waxaa siri hadii aad gabatid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu hawshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorada wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Al-Hayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii secretary waxay siri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaan irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo Cadnaan Model iyo inta ma jeerteen abadan waxaa balna waa inaan meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaa tahay daba dhilf ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxa la ii geeyay ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyay inta Axmed Rashiid la ii geeyay ka hor baabuurkii tay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxa next ah oo kugu xijireena dhig la yiraahdo Cadnaan Model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameeyay gacaqaad waa liidar baaxay waa liifeeray kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa Axmed Rashiid markii la ii geeyey wuxuu yiri wuu ka naaxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raalli kameehi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kameehi wax lagu sameeyay waxaa weydiiyay haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad mataqaanayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u lahaa inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri
waa ka xumaay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaa jiri superpower waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ay ahayd darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaanaa qawawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka tiliyaan ani ahay daba dhilif majarteen maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshxu lagugu dhimay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxaa ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqday mana ka gabanay xabada haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya mataqaanay cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aa idinka baryayahay waxaa ballan qaadayaa inta waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahimo salkeeda imaray ilaahu cadaabo jahanamo salkeeda imaray haddii aan aarsan waayo aad iyo aada u maasan tahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waana dareemi karaa inaan qiiro ku geliyey ee naga raali noqo fadlan muuqaalo kale si aad ula socoto subscribe saar channelka